koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan indhibaata igu filane faraqaan ku haystaa weli faalka caashaqu maygu soo fadhixun yahay war sidaa ma aha ku dheelin bahasha in dhibaata nugu filane qarahaan ka hayna war bahasha naga dhaamin intifaacya igu filane dhagaxaan ka haystaayay askartana ka fiicnaayay war gudoomiyaha amniga gobolka banaadir maanta wuxuu yidhi qaraxii ka dhacay muqdisho asagoo ciidamada ka dhumanaya ayuu luqluq yar gala kadibna bow ow dhaha war gudoomiyuhu runtuusa sheegi karine gaarigu ajab laamiga dhexdiisa shidaal ka qaadanaya war horaa waxaa loo yidhi rumaan la sheegin maahine rati dameerka raad qurxoon war bugtaan magaalada muqdisho caadada u noqotay tii maanta u dambaysa meeqaa ku baxday war muqdisho waxaa la isweydiiyaa bugtii yeertay ma ka badbaadda ee meeqaa ku baxday laisma weydiiyo war afhayeenka gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga laba keliya ku dhimatoo yidhi talow inta kale xaguu geeyey war gudoomiyuhu intuu yaqaanuu sheegaye adinku haddaa dad kala taqaanaan sheega war meesha maanta bugtu ka dhacday meel aan ka fogayn oo la yidhaahdo xerada gaadiidka booliiska xaflad weyna caawa ka dhacaysa war xafladda weyne aad sheegaysa maxay tahay 8 February weli lama gaarine war 22 Oktoobar mar hore la soo dhaaf war 22 Oktoobar aad sheegaysid 14 Oktoobar baa lagu hilmaamaniyo war sheekadu shala maanta ku ilowmiya maya waa xamar garow ku ilow war niman warka naga dhageysta waxaad sheegaysaan 30 January ka dambeysay xafladda waxa la yiri lacag badan ku baxday waxaana lagu xusayaa halkii sano oo gudoomiye Yiriso gobolka Banaadir maamulayay waxaan sagaraway wax qabadka Yiriso ugu faani doono war yaa gudoomiyahan wax qaban miyay tayni la farxiyo ka beer ugu heesi lahayd in dhibaata ugu filan faraqu ku heesta dhan waraa muqdisho balaaya kama jirtee dalxiisayaal noo joogay qaraxyada iyo waxa sheegaysaan ha maqashiinina xafladda caawna way ka qayb galayaan warnimayo waxa la yiri garow markii la isaaf garan waayay bisha 3aad ayaa mar kale loo ballamay in dani madaxda gogol u dhigo sababta keentay in garow mar kale gogosha la dhigana waxay tahay la yiri Axmed Madoobe oo yiri waa tii awowgay lagu wax kasta oo la sheegay muqdisho aanan tageyn war Axmed Madoobe aqli buu leeyahay haddii kale muqtaar roobow ayay mushaarada wada cabi lahaayeen war Axmed Madoobe aad balahan hadda ka hor baxaaf markii lagu casumay calaamad saarka lafta gareen waa kii yiri sidii roobow baa la qiyaamayo la xiri rabaa wallahi baanan yeelay waligay anigu maarag madaxweyne xabsi ka baqay warnimada waxa la yiri gucashiya dib iyo godob foolatay gurigeed baayay guul lagu farxiyo miyaad gacal dhashaa warnimada waxa la yiri Cabdiramaan Cabdishakuur wuxuu ku duceystaa ilaahu kursiga haygu adkeen sida Ra'iil Odinga iyo Faysal Ali Waraabe ee mar uun xilkaysi Axmed Madoobena wuxuu ku duceystaa ilaahu meesha Shariif Xasan iyo Cabdiweli Gaasmareen hay marsiin oo sida Erdogan afgambigu uga badbaaday nabad iyo nolol iga badbaadi war xafba wuxuu ku duceystaa ilaahu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha garansida inay galmudug ka soo jeedaan war Muuse Bixina wuxuu ku duceystaa ilaahu ictiraafka Soomaaliland haygu ceebayn oo haygu kashifin madawiina lafta garaagna may ka do'aysaday ilaahu andiyan afartaysan ka dhamaysadaaw aboro waa suurju joobjay qaraabadiis in googaysidoy wareeda madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Mabuto Museveni webaliyo sebo war sunha lagu qasana dhageyso war la yaab laa ka soo baxay oo miis ka soo haraacay warka iga dhaxgelinina wuxuu yiri Soomaaliya dawlad shaqaysa kama jirto war annaga la qabnee hana ictiraafo marka anu waxaan u maleynayaa Kampala Accord inuu soo wado taada ma ahayd yaalay noqon war Kampala Accord farmaajo hadda ka hor ku baxay ma marka loo raba inuu ku bixiyo war waa xiriirka in loo jaro ciidankaagana la baxleeyaa of labadoodaba war waxaan maqli jiray ludda jecli lafta jecli Kampala Accord farmaajo ma jecla Uganda ciidankeeda la baxdana ma jecla hadalka Museveni ma jeclaysan warnimayo waxa la yiri Afrikaan gabyayaan xigmada laga siyaadsaynay hayla yaabinina waa murtida gogoldhigeedii ayagoo dameeriya fardiyo lo iyo geel haysta aqli badan haday leeyihiin kama tahriibeene ayaga isxaasida hayee lama gumaysteene Soomaaliba Uganda ku tiri dawlad ma ahidine Yuweyrina warku ku hadlaya daacad ka ahaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin
lama harfaadintiin area yaana sii badinina kii bismillaah warninka toddobaadkii la soo dhaafay ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Deni maanta ayuu shaqadiisa u horeysay qabtay war ma madaxdiiba oo heshiisiyey war wuxuu waraaqii aqoonsiga ka gudoomay qonsulka Itoobiya u fadhin doona Garowe war adeer waxa soo wuxuu Cabdi Wali ku baxay weeyaan war waxa sabay Axmed isku maanaan ogeyn war Deni hawltaas ka weyn baa u taala waxaan maqlay gobolka bari Daesh iyo Shabaab inay ku dagaalamayaan waa inuu dagaalamayaan ana cunaya dalka iyo ana cunaya marka kuwaas inuu ka hortago oo dalka ka qabto ayaa laga sugayaa boowe Puntland xamar ma aha war gudhu iyo dhiigiinu muxuu macaanaaday war Soomaaliyan iyo al-shabaab waa isla jooga ismana arkaan marka waxaan maqli jiray ayayda ay ku duceysatay Allah il iyo dhag naga dhig warniyo qarac tareedisha ka dhacay ma Soomaaliya ku dhimatay masaajina ma ciidan war adeer Somaliland horumar bay ku talaabsatay hadda imaka waxa ka socda tartan orod ah oo wadamada xawla caalam oo dhan isugu yimaadeen war saas ma ahina waxa isku wiil meesha orodayahana ka socda wadamada aan ixtiraafka haysan war fadhiga hadii lagu aqoonsan waayay inay ordaan way ku qasban yihiin Soomaaliya waxa la yiri wali kaalinta koowaad uga jirta musuqmaasuqa iyo wax isdoomarinta maalin dhawaydii mana lahayna musuq iyo maasuq waanu dhalanay Ingiriiska inta ka yimid mana lahayna warkiina iyo warkii qayra waa isburinayaan maxaad madaxda uga daba hadashaan war musuq iyo maasuqa dhalashay dhiig baan wadaagnaa war hore loo yiri musuq maasuq Soomaali waa maharadeedii waxaan koonka ku nool qofba meel ka kurbaysane idinkuna Kalamaanay waxba soo kordhiseen war anagu musuqa Soomaaliland kordhinaana nabi waryaada wax wanaagsan sheega ama musuq ahadin xoolaha dadka hadii kale sharciga musuqmaasuqa ayaa ku qabanaya war sharciga musuqmaasuqa nabadii nolol waa ka horeeyay 6 kiilo ayaa leeyahay mar hore lu duugay noolaytaan waryaa cid kasta musuqmaasuqa shamada dhulka loo gelinaya naga taga qaylada ay shahaadaas waryaa ma la gelin karo qowsaarkay qaanka kala war shibno ar sharti ilaahay noo hijaaba